hooyaday waa ay necbeed sababtoo ah waxaan u ekaa aabbahay. weliba hooyaday maysan imaanin maalintii iigu farxadda badneed adduunka oo aan ka qalin jebinayay jaamacadda. hooyaday had iyo goor waxay ahayd mid nacayb igu muujisa, aniguna ma ogeen sababta ka dambeysa ee hooyaday ay necab tahay. maalin maalmaha ka mid ah ayaan ogaaday sirta hooyada ee iga qarinaysa aniga, iyo sababta ka dambeysa inay hooyadayn sidaan iila dhaqanto. maalin maalmaha ka mid ah ayaan guriga imaaday, waxaana isku qaylinay hooyaday si aan u ogaado sababta markasta ay ii necab tahay aniga. hooyo, maxaan kaa sameeyey oo aniga markasta ii necab tahay ama nacaybka ay igu muujisaa? maxaa qaladoo kaa sameeyey? ii sheeg sababta aad ii necab tahay hooyo. hooyaday waxay iigu jawaabtay aniga, sababtoo ah waxaad u eg tahay adiga aabbaha. markastoo aan ku arkane waxaan soo xasuusanayaa aabbaha. dhab ahaantii anigu weligay aabbahay ma arkin, oo aniga oo dhalan ayay aabbahay hooyaday kala tageen, mana aqaano sida uu eg yahay. hooyaday waxay ahayd mid ila dhaqanta si xun, weliga sabab la'aan. markaste waxa ay ahayd mid igu qaylaysa. markii dambe waxaan idhi, hooyo iga daa, uma dulqaadan kara aniga. waana isku qaylinay labadeenna. ugu dambeyntii waxaan go'aansaday inaan hooyaday ka tago, waana ka dhaqaajiyey aniga oo xanaaqsan. dib uguma soo laabanin hooyaday. waxaan helay shaqo, waxaana u noolaa keligay. 10 sano ayaa ka soo wareegtay intii aan ismoogeen hooyaday. waxaan raacday danahayga qaaska ii ah, mar dambena hooyaday dib ugulama kulmin. ugu dambeyntii waan guursaday, waxaana dhalay gabar. laakiin xasuusaha hooyaday iigu soo korisay waxay ahaayeen weli kuwa ilaab kiciya, oo markaste waxaan soo xasuusan jiray xasuusihii quruxda badnaa ee hooyaday. nolosheeda inta badan waxaan la soo qaatay hooyaday. hooyaday waxay ahayd mid isiisa cunto iyo dhar, laakiin hooyaday kama helin jacaylka hooyanimo ay uga baahan yihiin carruurta. ayadu waxay ahayd mid si gaara ii kahata aniga. waxaa maskaxdeeda ku soo noqnoqon jiray su'aalo ahaa, aabbaha muxuu ka sameeyey hooyada? maxay sidaas oo dhan iigu nacday keliya inaan u eegahayaa? maalin maalmaha ka mid ah hooyaday ayaa waxaa imaatay guriga. dhab ahaantii ayadu waxa aan ka ismoogeen muddo badan, waxayna u timaaday inay iraali galayso. waxay noqotay qof weyn oo haddana daciifa oo ay ka daba timid. waxay ii dhiibtay waraaqo ay ka keentay dhanka booliiska. hooyaday iyo aabbahay waxay is-shukaansadeen ama isla socon jireen intaana dhalin ka hor. aabbahay waxa uu ahaa nin dabeecad xun, dabeecaddiisana ay aad u qallafsan tahay. marar badan ayuu hooyaday dhibaato u geystay, marar badanna way ka dacwootay, ilaa markii dambeeto uu booliiska caawiyo. aabbahay waxau hooyaday ka tegey markuu ogaaday ina ay uur leedahay. uurkaasna waxa uu ahaa aniga. aad ayay u niyadjabtay sababtoo ah waxa uu ka tegay markii ugu baahi badneed. aniga ayaa dhashay. markay ii fiirisay waxay aragtay inaan u egahay aabbahay. taasina waa sababta hooyaday markasta ay u xanaaqi jirtay markii wejigay aragto. markasta hooyaday maadaama ay ugu xanaaqi jirtay, laakiin weligay hooyaday iima diidin cuntada iyo waxyaabaha aan u baahanahay, baahina iguma fiirsanin. waxay i sii jirtay wax kasta oo aan u baahanahay aniga. waxay ahayd markii ugu horreysay aan dareemay dhibaatada hooyaday haysata, waxaana isgeeyey booska hooyaday ay maanta ku jirto. haddii aad ku jiri lahayd sidee ayaa dareemi lahayd? waxaana fahmay wax kasta oo hooyada iyo aabbahay ka tabanaysa oo xumaa. maxay kula tahay adiga?